nabad daawadayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Shariif Ismaaciil halkanina waa Alkownayn Media. Sacuudiga ayaa dhisaya webiga ugu weyn ee adduunka oo ku yaala bartamaha lama deegaanka boqortooyada Sacuudiga, dhererkiisuna wuxuu 2 jeer ka dheer yahay dhirirka webiga Niil ee Masar. Tani waxa ay Sacuudiga ka dhigi doontaa kan ugu horeeya adduunka ee dhanka sifaynta biyaha. Waxa uuna webiga cusub biyo siin doonaa dhammaan qaybaha boqortooyada iyadoo la adeegsanayo shabakad tuubooyin waaweyn oo daboolaya dhammaan baahida biyeed ee ka jirta gudaha dalka Sacuudiga. Waa mucjiso bani'aadam samee ah oo Sacuudigu ka hirgelinayo lama deegaanka, waxaana la filayaa in mashruucan weyn ee Sacuudigu ku dhow yahay inuu dhammaado. Sacuudiga waxaa sidoo kale loolan kala dhexeeya dalalka Liibiya iyo Masar ee dhanka sifaynta biyaha. Iyadoo Sacuudigu ku dadaalayo inuu sameeyo waxa Masar aysan weli ku guulaysan inay dhammaystiraan oo ah helidda biyo nadiif ah oo dadka oo dhan ku filan. Bariga Carabta waa mid ka mid ah meelaha ugu qallalan dunida, waxaana Sacuudiga ka soo wajahday dhibaato ku saabsan helitaanka biyaha nadiifka ah tan iyo markii la aasaasay. Taasi darteed, Sacuudiga wuxuu dhowaan xoogga saaray sifaynta biyaha ilaa uu gaadhay natiijooyin aan hore loo arag, isagoo haatan ku tiirsan yahay 50% biyaha laga helo sifaynta, taasoo Sacuudiga ka dhigaysa dalka ugu horeeya dunida ee dhankaas. Sanad walba, Sacuudiga wuxuu soo saaraa in ka badan bilyan mitir kuyubik oo biyo sifaysan ah, taasoo ah 18% wax soo saarka adduunka. Sacuudiga waxa uu leeyahay 27 xarumood oo biyaha lagu sifeeyo oo ay ku jirto mid ku shaqaysa tamarta qoraxda oo qiimaheedu gaarayo ilaa $130 milyan. Xarumahan waxay caawiyeen in la helo tamar badan iyo sidoo kale yaraynta cusbada biyaha iyo hubinta in biyaha gudaha dalka ay kordhaan. Si kastaba ha ahaatee, Sacuudiga weli wuxuu doonayaa inuu wax ka sii badan sameeyo ilaa heer uu ku guulaystay inuu aasaaso mashruucan webiga dhulka hoostiisa mara. Mashruucan oo loo tixgelinayo mucjiso bani'aadam samee ah, wuxuu Sacuudigu ka bilaabay dhismaha webi weyn oo hoos mara dhulka lama deegaanka ah, kaas oo biyo gaarsiinaya dhammaan qaybaha dalka. Dhererka webiga ayaa gaadhaya 12,000 oo kiiloomitir, balaciisuna waa 11 mitir, halka qoto dheerkiisuna uu yahay ku dhowaad 4 mitir. Waxaa loo sii gudbin doonaa biyaha shabakad tuubooyin ah oo hoos mara guud ahaan dhulka boqortooyada, kuwaas oo biyo siinaya dadka oo dhan. Sacuudiga wuxuu kaashanayaa shirkado Imaaraati ah si loo sameeyo tuubooyinka aan daxalka lahayn, iyada oo laga dahaarayo gudaha iyo dibaddaba si ay uga ilaaliyaan iftiinka qoraxda, kiimikooyinka, heerkulka sare, iyo waxyaabaha kale ee waxyeellada leh. Shabakadan tuubooyinka ah ayaa maalin walba qaadi doonta ilaa 9 milyan oo mitir kuyubik oo biyo ah. Inkastoo Sacuudiga uu horumar weyn ka sameeyey sifaynta biyaha, mashruucan cusub wuxuu noqon doonaa mid taariikhda boqortooyada baaldahaba ku yeelan doona, waxaana la filayaa inuu Sacuudiga ka dhigo mid ka mid ah dalalka ugu qanisan adduunka ee dhanka khayraadka biyaha. Sidaas darteed, dawladdu waxay dadaal weyn u huraysaa dhammaystirka mashruucan weyn si ay biyo nadiif ah ugu keenaan muwaadiniinta, iyadoo diiradda saaraysa mashruucyo kale oo ay hore u bilowday, taasoo qayb ka ah dadaalada boqortooyada. Waxaa muhiim ah in la xuso in Sacuudigu uusan ahayn dalka Carbeed ee ugu horeeyay ee dhisaya webi gacan kusameys ah. Liibiya ayaa ahayd dalka ugu horeeyay ee Carbeed ee sidan sameeya. Sanadkii 2008, Liibiya waxay sahminaysay saliidda iyadoo markaas ogaatay eel biyood weyn oo ku yaal lama deegaanka Liibiya. Waxay eelkaas ku xidhiidhisay shabakad tuubooyin ah, waxayna ku guulaysatay inay biyaha ka soo qaado lama deegaanka ilaa xeebta Liibiya si loogu isticmaalo beeraha. Inkastoo farsamada loo isticmaalay Liibiya ay tahay mid ka fudud tan Sacuudiga, Liibiya weli waa dalkii ugu horeeyay ee Carbeed ee sameeya webi gacan kusameys ah. Marka laga hadlayo guulaha dalalka Carabta, lama iloobi karo dalka ugu weyn uguna muhiimsan Carabta ee Masar. Masar waxay sidoo kale bilowday mashruuca Delta oo dhererkiisu yahay 114 kiiloomitir sanadkii 2017, kaas oo ujeeddadiisu tahay in la helo biyo lagu waraabiyo beeraha gudaha dalka oo lagu ballaariyo dhulka beeralayda ah. Sifaynta biyaha waa mid ka mid ah meelaha muhiimka ah ee dalalka gobolka, gaar ahaan marka la eego isbeddelada joogtada ah ee ku dhaca webiyada dabiiciga ah. Sidaas darteed, dalalka Carabta waxay ku tartamayaan sidii ay u gaari lahaayeen guulo waaweyn oo dhankaas ah.
waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. fadlan ku soo biir bogageena Facebook iyo YouTube si aad u hesho warbixinno dheeraad ah oo xasaasi ah. mahadsanid.